السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا من شراطة ميديا برودكشن كسر دوادا مركلة waxaan maanta halkan idinka warrami doonaa macnaha farta ama fakiyuda ama fartaasi dhexe ee sidaas loo taagaa waa maxay macnaheedu dad badan ayaa waxa ay dhahaan sidaasi oo caado ka dhigtay inay farta sidaas dhahaan balse halkay ka soo jeeda fartan iyo iska leh dhaqan ahaan yaa leh caado ahaan iyo dhaqan ahaan iyo iska leh fartan oo saasi la dhaxo Soomaalidu dhaqan miyaa ay u leedahay sanadkii ayaa ay soo baxday sababta ay ku soo baxday intaaba maanta ayaan idinka warrami doonaa channelka ee ku soo dhawaada rukuma channelka subscribe na saar like na ku qabo sanada ka hormaray taariikhdu ahayd 1975 ayaa waxa dhacday in dagaal Yurub la isku hoogtay oo hoog iyo baana uu ka dhaco dagaalkaasi oo sababay in ay dad badan oo Yurubiyaana laga gooyo gacmahooda fartaasi dhexda dagaaladaasi Yurubiyaanka ah American warskaasi waxa ay ku dhintay dad fara badan oo laga gooyo farahaasi ama se gacanta dagaaladaasi waxa ay soo jiitamaanba waxa dhacday mar ay joogsadeen waxa laga dhaxlay oo kaliya ah way dadka xasuusan yihiin in gacmahoodii iyo farahoodii ay ku maqan yihiin dadkaasi Ruushiyada ama se dalalkaasi kale waxa dhacday in ay sameeyaan saansaan ama se astaan ay uga calaaqadayaan oo ay dadka ku leeyihiin anagu waxyaabihi aad nagu sameeysan waan ka nabad qadnaa taasina waxa ay sababtay in fartaasi dhexe afarta farood ee kalena saasi loo xajiyo oo feer laga dhigo fartaasi dhexdana sa loo taago oo waxa ay macnaheedu tahay in ay leeyihiin fartayadii iyo gacmahayagiiba waan noqonnaa balse dad badan oo Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhigteen caado ama se wax la isku caayo waxa ayna ka dhigteen waxyaabo iska caadi ah fakiyo waxaas iska oranayaan laakiin ma oga caadada iyo sababta ka dambaysa falkaasi waxaana imika ku dhaqma ashyaadaasi ama astaamahaasi dadka waaweyn ee heer American people ka laakiin ciyaalada yaryar ee American guys American people and young people ka yaryar ee dadka aadka u yaryar ee American people kamid ah ayaa waxa ay ka dhigeen shay cay ah oo ay ku dheehan tahay balse dadka Soomaalida ahna waxa ay qaateen sharcigaasi Amerikaanka ah oo ay ka dhigeen halka aan iska khilaafsanahayna waa halka aanu marka farta suulka iyo fartaasi ugu koonaysa saas la isugu qabto ee oo laga dhigo waxa aanu anagu naqaanaa in ay cay tahay balse iyagu waxa ay u yaqaaneen in ay fartaasi saasi ay tahay very good ama se okay anaguna waxaanu naqaanaa in ay cay tahay laakiin dad badan oo heer American people dadka aqliga u saaxiibka ah ayaa waxa ay garanayaan macnaha sidani balse dadkii dhashay 2020 wixii ka soo dambeeyay ayaa waxa ay ka dhigeen wax iska cay ah ama ay ku dheehan tahay Soomaaliduna waxa ay caado u leedahay in ay markastaba labada gacmood hadii la isugu qabto qofkaasi ku caay dad badan ayaa mararka qaarkood waxa dhici karta in ay isku laayaan balse dagaaladaasi waxa ay sababeen in ay saansaanta yar ee gacanta saal oranaya ka soo baxdo dad badan oo Soomaali ay si khaldan u fahmaan balse maanta waxaan channelka ku soo qaadanay macnaha fakiyo halka ay ka timi iyo sanadkii ay soo baxday waxyaabaha u sababka ah iyo Soomaalidu sida ay u qaadatay inuu sheegay yahay hadaba waxaan idin leenahay markasta iyo meel kasta waxaan maleynayaa inaad fahanteen shaygaasi ama sidaasi fartaasi halkaas idinka muuqata ay macnaheedu tahay waxaan idinka codsanaa inaad channelka subscribe saartaan rukunta channelka subscribe saara share like comment